gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir saxaafadeed warbaahinta ugu qabtay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray maamul goboleedka Hirshabeelle. Dhaliisha ugu badan ayuu Mr Dabageed u jeediyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle waxa uuna ku eedeeyay cadaalad darro, hoggaan xumi iyo waliba ku tagrifal awoodeed. gudoomiye Yuusuf ayaa sheegay in markii horeba dadka reer Hiiraan uu isaga ku riixayay ka mid noqoshada maamul goboleedka Hirshabeelle, balse markii uu arkay cadaalad darrada, maamul xumida iyo hoggaan la'aanta Hirshabeelle madaxda ugu sarreysa ay ku wadaan shacabka ku nool labada gobol uu go'aansaday in xiriirka uu u jaro Hirshabeelle isla markaana dadka reer Hiiraan ay ka tashadaan ayahooda uuna shaqayn doono ilaa iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka soo fargelinayso xaaladda qalafsan ee Hiiraan ka taagan. waxaad reeyina waa diideen ma ogola dowladnimana ma diidana laakiin cadaalad darro iyo dulmi iyo xuquuqdooda in la duudsiiyo reer Hiiraan go'aanay ka gaareen, Hirshabeelle go'aanay ka gaareen. awalna annagaa ku kalaxnay, haddaana ilaahay weyn iyo ayaga xafiisaa weydiisanayna. sababtu waxay tahay annaga waxaan ugu kalaxaynay Soomaaliya federaal noqotay, nin walba degmadiisa uu aaday. hadda Hiiraan iyo Shabeellaha dhaxana dad ahaana waa isku xigaan, deegaan ahaana waa isku xigaan, dadkooduna waa isjecel yihiin, waxa ka dhaxeeyana waa ku filan yihiin. laakiin laba nin jeebkood kuma filla. reer Hiiraan taas ugay arkeen waa ka fiirsadeen. dowladda Soomaaliyeedna waxay ka codsanayaan inay arrimaha reer Hiiraan wax ka tiraa si degdegan ay iskaga warsato go'aamo uga soo saarto. afka ku hadlaa af Yuusuf Dabageed maahan, garashada ku hadlaa garashadayda maahan, waa go'aankii waxgaradka reer Hiiraan iyo ugaasyada reer Hiiraan. waan meesha caalamku u sheega, dowladda Soomaaliyeed aan u sheega oo dalka iyo dadka ka mas-uula. ilaa dowladda Soomaaliyeed waxaa laga shaqaynaa ay ka soo sheegayso ay faragelin kaga soo samaynayso maamulka Hirshabeelle, wax wada shaqayna iyo wax xiriira iyo wax wanaaga oo dadka reer Hiiraan Hirshabeelle la yeelaan ma jiraan. waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay si degdeg ah Hiiraan wax laga yeelaa u soo tilmaanto. waxa waaye marka meel dhimirka qabtay hadda loo taallaa. reer Hiiraan waxay muwaafaqo ku yihiin in dowladda Soomaaliyeed ay ka war sugaan, dowladda Soomaaliyeed siday wax u dhigtana ay qaataan, waxay dhibsanaana dowladda Soomaaliyeed wax ka weydiido, arrintaana dowladda Soomaaliyeed soo faragelido. dadka reer Hiiraan waxaan leeyahay ha ka shaqaynaha dan Yuusuf Dabageed, ha ka shaqaynaha dan qof kale leeyahay. danta adu ku leedihiin adukoo madax bannaan waxa idiidana oo deegaankiina iyo dadkiina u dana ka hadla. waxaan idiidanahayn iska diida, waxay idiidanana tilmaama. cadaalad darro baahday oo dan shaksi ay ka leeyihiin ayay ayaga kaliyuhu ay isla og yihiin ay dadka reer Hiiraan kula tagrifalaan. waxaan dowladda Soomaaliyeed u sheegaa oo dalkan iyo dadkan ka wakiila kana codsanaa inay wax ka qabato xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha. shaqaaley Hirshabeelle u qoondeen oo xafiiska ra'iisul wasaaraha u badan, Shabeellaha dhaxaa laga qoray Hiiraan lama soo gaarsiin. kuwa World Bank mushaarka siiyo Shabeellaha dhaxaa laga qoray Hiiraan lama soo gaarsiin, Hirshabeellahana lahayd. baabuurta ciidanka booliska ee Hirshabeelle la siiyey iyo mootooyinka Hirshabeellaha lahayd, Hiiraana wax lama keenine Shabeellaha dhaxaa la geeyey. hay-adaha samafalka kuwa hadda yimaadana markay soo codsadaan caasimadda degaa la yidhaha Hiiraanna waa laga xishaa. kuwa joogana sidii looga rari lahaa caasimada Shabeellaha dhaxatee u guura loo dhihi lahay ayaa laga shaqeeyaa. ninka booska fulinta jooga
oo booska ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha u jooga oo fulinta joogana waxaas ka shaqeeya ninka kalena waa ka ansixiyaa kulli labadaas nima haysata maamul madax bannaan oo shaqeeyana ma jiro. mudane yuusuf axmed hagar oo sii hadlay ayaa carabka ku dhuftay in madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen saraakiisha ciidamada amniga ee ku sugan magaalada beledweyne uu ku riixayo in xabsiga ay u taxaabaan gudoomiye yuusuf axmed hagar. cali guudlaawe saraakiisha ciidanka iyo oo dowladda federaalka iyo kuwa nisa iyo kuwa booliska hirshabeelle oo la soo hadlas wuxuu leeyahay dabageed hala soo qabto war yaa qiisay waay aniga sharciga iqaba kale cali guudlaawe rabitaankiisu iqaba ma waana rabitaankiisu iqaba ma laakiin waxa iqaba kara sharcina inay aadaan ama keenaan ama lagu shaqeeyo ayagaa diiday waxa ku diriiraynaba waay sharciga iyo dastuurka hirshabeelle leeyahay aan ku shaqayno iyo ku shaqaymayna anaga dukaamo ku haynaha dadkoo dhan ka shaqaynayin waxaan isku haysanaaba intaana waa duuban tahay wasiirka maaliyaddunkii meeshaa la yimid wuxuu yidhi kulligaayna sidaan u yar nool weyno madaxweynuhu loogu sarreeyo xildhibaanadu loogu jiraano golaha wasiiradu ay ku jiraan beesaan beledweyne ka soo jirin oo yidhi beesaan beledweyne ka soo jirin waa duubantaan u malayna midii waa hayaa war ilaaha idigu dhaarshee beesada beledweyne oo waxaasaan idigu qabanaynaa lalahayn oo waxaanaan idigu bedelaynaa lalahayn inay beledweyne beesada leedahay waa la sheego oo hayaahe ama hiiraan leehe meesha loo qaadaa maa loo sheego oo lagu qanciyo waxa loogu qabanaa maa loo sheego ayagu miyayna iska lahayn miyayna xaquuqdoodii ahayn miyaana dalkoodu u baahnayn oo deegaankoodu u baahnayn. mister dabageed ayaa sharci darro docda kale ku tilmaamay xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha hirshabeelle waxa uu cuskaday 3 qodob uu sheegay in xilka qaadista aysan sharci ku noqon doonin. gudoomiyaha gobolka ayaana ugu baaqay xildhibaanada dowladda dhexe uga jiro hirshabeelle gaar ahaan hiiraan madaxda ugu sarreysa dowladda dhexe iyo beesha caalamka inay si degdeg ah ay ku soo farageliyaan xaaladda qallafsan ee gobolka hiiraan xilligan ka taagan. intii lay xukumo xilli ay ka qaadi karaan oo fiirsada warkaas yaa intii lay xukumay oo shabeellaha xajoor la joogay oo xamar la joogay oo beledweyne la joogay xilli ay ka qaadi karaan mar haddaan hadlay oo reer iiraani anagu tashanay oo dhibaatada reer iiraan isku sheegnay oo dhibaatada hirshabeelle ku haysa isku sheegnay oo go-aankan sheega ka qaadanay aniga xil saarteen kadib wax xiloo laga qaadi karaa ma jiraan wax xil ka qaadi karo reer iiraan ma jiraan iyo dowladda Soomaaliyeed oo arrinta soo faragelida bas warqadda intii hore aan laga soo qorin oo mugaan xaquuqda reer iiraan oo la dulma aan sheegay iyo waxa lagu sameynaa laga soo qoraa xusaasay qalad ku too hadee anigu waaba ka madax bannaan aan qabaa ilaa amar dambe waxa kale qalad ku tahay hadee dad dowlad nahay loo madaxweynayaal nahay madaxweyne ku-xigeenaal oo dastuurkay madax ka yihiin aan fiirinayn ay madax ku yihiin ilaa dadka xoog kuma qabsanay dastuurka hirshabeelle wuxuu sheegay qodobkiisa 58 madaxweynaha awoodiisa uu tilmaamayaa wuxuu sheegayaa hadduu dalka ka maqan yahay wuxuu bedeli karay wuxuu magacaabi karaa insan jirin madaxweyne buuxa ku sumuu yahay waxna bedeli karo waxna magacaabi karo markii la qoraa waxa la isku qabtay muguu hirshabeelle ka maqan yahay la yiraahdo hirshabeelle hadda la bilaabay muguu Soomaaliya ka maqan yahay la yiraahdo 9 saaco habeen muguu warqadda laga soo qoraa babaaso oo wax ogahay leedahay jirin oo wax yaani reference ay leedahay aysan jirin oo sida ciyaal suuqnimada u qoran la sharci darray ku tahay sidaas daraadeed reeriga waa iswarsadeen go-aanka sheegaya inay gaareen mar labaaday iswarsadeen midkaan haddana maanta sheegaya ay gaareen waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay si degdeg ah hiiraan waxa laga yeelaa u soo tilmaanto
taladan meeshaa ku imiday inteeda ugu badan waxaa iska lahay dowladda Soomaaliyeed heshiisyadii lala galay oo ka mid ahayd oo dowladdu la gashay maalikii ina waana soo caaytama dowladda cayna oo ku yimiday Kismaayo sidii aan ku imid aniga haddana wixii dowladda Soomaaliyeed ku talido ana ma ku joogi doonaa ama uga tagi doonaa dowladda Soomaaliyeed arrimahan in soo farageliso ay reer Hiiraan waxay yeelaan ay uga soo sheegto ama ay uga timaadaan ma aha Hirshabeelle wax wada shaqeynoo reer Hiiraan la yeelaan ma jirto ayagoo dowladdu ayadoo wax ka hadlayn ay yiraahdeen ayagoo inay Kenya ku galaan soo raba oo wiri dowladda Soomaaliyeed ma jirto ina waa rasaasuu qaasatan Hiiraan iyo dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalka wakiilka ka ah waxa ka codsanayna mar labaad iyo mar saddexaad inay arrintaayna si degdeg u soo farageliyaan waxay maraysaa meel serious ah gunti iyo gabagabadii gudoomiye Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa soo hadal qaaday warar sheegaya in ciidamada daacad u ah ay la wareegeen kastanada canshuuraha maamulka gobolka uu ku qaado qaybo kamid ah xaruntii maamulka iyo xarunta bangiga gobolka waxa uu yiri adeer waa mahadsantahay laakiin waxa ku sheegaa aniga ciidan inay daacad ahayno beledweyne ma joogo sababtoo ah inay gudoomiye gobolka Hiiraan aan ahay ciidamada dawladda oo ila shaqeynayana haday Soomaali yihiin haday ama Soomaaliyiin daacad ila shaqeynayeen sidii ay ila shaqeeyo hayaan bangiga qolada haysato kala wareega ma jirto ciidanka jooga awal uu jooga aniga awalan madax u ahay ninkii geey baan ahay kastamada kuwa jooga la mid yani waxa la yiraahdaa waxaas mugaan xalay soo geli lahay magaalada oo qabsan lahay ayaa waxa la dhihi karaa de kastamo iyo bangi iyo la wareegtay iyo idaacad iyo la wareegtay ayaa la dhihi lahay waxa sadeena wala xukuumay oo dadka ka talna awalay dadkii ila shaqeynaayo madaxdu waxay ahayn haddana sidii ila shaqeeyaan gaadiilayda waxa isku sheegnay in nidaamku laga burburin oo buudooyinkii aan dhisaynay midaan dhamaynay lacagteedii aan iska bixino sidaan u bixi lahaynay aan qorshe u sameynay qorshihiina ku wadaynaa muga dhamaynana kuwa kale ku xigo sida Saalax Jeere iyo beer gadiid iyo ka shaqay doonaa sidaasaan hawsha ku wadi doonaa haddii Ilaahay idmo inaan ku wadlana aniga iyo ganacsatada cashuurta bixido gaadiilayda u badan waa isku sheegnay kuwa kale oo ganacsatana waa u yeeri doonaa mugii wadcu dhamaado inaan u yeeraan isku ogeyn waana isku sheegi doonaa sidii dhaqaalaha Hiiraan danaha reer Hiiraan loogu qaban lahay dad lagu wada og yahay ay uga wada shaqeyn lahaayeen aan ka wada ballami doonaa kuwaana maanta saas ka ballan Maxamed Ibraahim Siyaad Kalsan TV Beledweyne